السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku xiran meel kasta muuqaalkan idin soo gaaro ku soo dhawaada insha Allah bil kariim muuqaalkan waxaan idinku soo bandhigi doonaa dhul ku yaala Kaxda hadda meeshaan aan marayno waa wadadii Roodo ee Kaxda jidkan ilaa dhulka meesha aan u socono muuqaalka toos ma idinku soo wada qaban doono waayo muuqaalka aad u dheeraanaya waa ka jaraya waa ina ogtihiin aan isla socono isla shaqeyno danna xogta iyo warbixinta aan idin siinayo qof walba inuu macnaha si fiican u fahmo qofkii dhulkan danaynayo inuu xogta dhageysto warbixinta dhageysto markaa kadib uu ka falceliyo Roodo waa xaafad ka tirsan Kaxda waa gobol ka tirsan waa degmo ka tirsan gobolka Banaadir xaafadda Roodana waxay ka tirsan tahay Kaxda laamiga Kaxda iyo xaafadda Roodo waxa u dhaxeeyo kiiloomitir ahaan 3 kiiloomitir marka laamiga ka soo tagtid ilaa Roodo ay ka yimaadid waxa soo soconay 3 kiiloomitir wada jaaya oo laamiga ka soo leexato oo Roodo imaanaysa jirto waa 3 kiiloomitir intaas waa isla fahanay waxa u socona marka anaga ma ahan Roodo laftirkeeda ee dhul Roodo xoogaa u jiro inta kiiloomitir u jiran aan idin sharaxayo baan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo bandhigo dhulka aan u socono waa dhulalka la yiraahdo Bararis dhulku kuwana waa deegaan aan loo kataa kuwana waxa loo kataa Bararis ama lacagta inay ku kabacdo dhul ahaan goof ahaan area ahaan waa dhul aad loo jecel yahay waliba inta badan goofley gacantooda oo ka baxay ganacsatada wada leh waa dhul Soomaaliya oo dhan ka dhaxeeyo oo shakhsi gooniya ama qolo gooniya aan la dhihi karin way leeyihiin oo macnaheedu yahay waa la iibsada dhulkaas beeciisa batay aad loo jeclaa markii lacagaha ay socdeen dhulka dhaqdhaqaaqiisa markuu socday aad loo kala gadanay hadda xaafadda Roodo waa waxa noo muuqdo Kaxda waxa ka imaanay laamiga ka soo leexanay dhanka Roodo u soconaa laamiga iyo Roodo inta u dhaxayso 3 kiiloomitir maadaama ay tahay 3 kiiloomitir kaamira la idin kugu ma hayn karo laana muuqaalkana aad u dheeraanaya aniga xitaa hadalka iga dhamaanay Roodo waa tan xaafadana la dhahaa Roodo waa xaafad deegaana biyo koronto leh iskuul leh masaajid leh madaaris leh wax walba ay u dhameystiran yihiin mootooyinka xitaa meesha imaan kara qasab ma ahan ina gaari wadatid mootaa daarabtid way ku keeni kartaa dhulka aan u socono marka waa tagaynaa biidnillaahil kariim muuqaal ahaan waan idinku qabanayaa dhulku sida uu eg yahay cabirkiisa inta boos aan ka hayo iyo qiimaha ay yihiin marba hadaa raadinaysid dhul Bararis ah ama lacagta ay ku kabacdo dhulka waxa lagu gataa istiraatiijiyad dhulkan aan hadda imaaday meesha uu ku yaalo waa meel istiraatiiji ah istiraatiijina waxaan kala jeedaa dhulkan horta koow dhul ahaan waa dhul dalcad oo ma ahan macnaha meel kore oo dhinacyada dhulka raaraca ma ahan dhul baloogiisa uu siman yahay bilaaw ilaa dhamaad dalcadna ah oo asaga markaa taagan tahay magaalada aad arkayso hadda laftirkeeda magaalada waa u jeedi kartaan zoom soo dhahaya waana ka arki kartaan meeshaan anagoo taagan baa magaalada ama xaafadda Kaxda arki kartaan dhulkan sidoo kale wuxuu istiraatiiji u yahay wadada ka soo baxdo ee laamiga Kaxda ka soo leexato ee Roodo soo aado wadadaas wuxuu ka yahay balooga labaad macnaha wadadaas balooga saaran balooga ku xiga waa wadada cabir ahaan goofaha way ku cabirantahay cabirkeedana si sax ah u jira meeshaan marka taagantaa sidoo kale waxa arkaysaa bacadka jasiiro waa ka jasiiro bacadkeedina waa u jeedaan dhulkan marka in aad darajo inta la eg jasiirana aragto magaaladina aad aragtid waxa saamaxay meesha uu ku yaalo oo ah meel dalcad ah meeshaan magaceeda waxa la yiraahdaa Diyaaradega la dhahaa waa caan qof walba oo dhul ku shaqo leh ama qof walba area-dan dhul ku leh uu meel ogaan karo oo garan karo dhulkan awal qiimo gaaray maantana qiimihii uu gaaray qiimo ka hooseeya rabaa inaan idinku bandhigo oo aad uga faa'iideysataan meeshaan hadda aad joogno anaga meel deegaana ma ahan waa arkaysaa
macnaha waa dhul ay xoolo daaqayaan oo goofo ah oo baadiye ah, meel korontona ma ahan, meel deegaanan ahna ma ahan, balse waa meel haddii dhaqdhaqaaqa dhulka uu soo laabtana dhaqdhaqaaqeedu uu xawli noqonayo, haddii kalena waqti kadib deegaan noqon karta. wadadan hadda idiin muuqato cad markaa kor fiirisaan meeshaan taagana ama xoolaha daaqayaan ma aha, kor fiiriya wadada cad waa wadadii Roodo, waa aragtaan xitaa guryihii Roodo jidkii 15 ahaa ayaan kusoo soconay waa ka jidkaas sida uu u soo socdo koofkaan soo dhaxmaraya. marka balooga labaad uu dhulkana ka yahay, dhulkaan rabo inaan idiin sharaxo ama aan taaganaho iibka ah, balooga labaad wadadaas ka noqonaya. magaaladana zoo markaa soo dhahay waaba aragteenbo, marka meelaha magaaladii ka arki kartid deegaan ahaan iyo kiiloomitir ahaanna indhihiina aad ku arki doontaan. haddii lagu yiraahdo lacagteedu waa lacag hooseyso, waxaan maleynayaa dee qof walbo wax u raadiyo amaba jaanis uu ka faa'iideysan karo. yawm min al-ayaam waxaa laga yaabaa dhulkan 10 boos hadaa qaadatid oo aad laga yaabee 5 sano sugtid ama 10 sano sugtid, lacagta aad ka bixisay 3 jibaarkeed inuu dhulkan kuu soo celiyo. xaqiiqo waa hadaa sabir yeelatid. boosaskan ama halkan waxaa ku jira 10 boos oo mid walba cabirkiisa uu yahay 20 mid walba cabirkiisa waa 20 lagu dhuftay 20, waana 10 boos oo isku dhagan. wadada Roodo ee Kaxda wuxuu ka yahay dhulkan balog labaad, waa dhul dalcad ah, goofaha dhinacyadiisa ku yaalo dhan goofka ugu quruxsan uguna dalcadsan way. weliba goofka marka laga soo tago 10 boos meesha ay ku yaalaan meesha ugu quruxsan way. waa dareemi kartaan hadda inaan soo yara dagaadagayno soo socno, laakiin dhulka meesha ku yaala degaan deg ma ahan, raarac ma ahan, godna ma ahan, waa dalcad siman ee aad u qurux badan. almuhim boosaskan 10 boos ah qiimaha lagu rabo waa $2,100 calaa boos. halkii boos waxaa lagu rabaa $2,100. takhayal dhulkan dadkuna way ogaan karaan, dadka qaar uu 3,000 ugu fadhiyaa, dadka qaar uu 2,500 ugu fadhiyaa, qaar xitaa 3,500 ugu fadhiyaa. marka hadda dhulka uu kala socday dhulka ugu qaalisanaa buu ahaa. dhulka marka deegaan ma ahan, laakiin waa deegaan fiiris. kiiloomitirka eber aan ka dhigay, waan dhaqaaqaynaa meel waxaan tagi doonaa deegaan bilow ah, deegaankeeda uusan buuxsaminin, korontada aysan weli soo gaarin, laakiin guryo badan ay ka dhisan yihiin oo xaafado badan ay ku yaalaan. dadka deganna goofley ma ahan, dad caadi u soo degay waaye. meesha waa tanaa, meeshaan waa xaafad Soomaali baa degan, ma lahan koronto. dhulkan wuxuu u jiraa meeshaan 2 kiiloomitir iyo 200. boosaskii deegaankan yaryar oo xaafadaha ah waxay u jiraan 2 kiiloomitir iyo 200. wadada Roodo meesha ay ka baxsan tahay waa tan. wadada dhulkan wuxuu u jiraa 3 kiiloomitir iyo 300. waa kaas wadadan wuxuu u jiraa 3 kiiloomitir iyo 300. waa jaanis ka faa'iideysi mudan.